haddana aadaan u ilmeynaa aabo khayr iskuugnii haddana aadaan faraxsanahay muhiimadda aabaheyga tagaa. waxaan mar kale idinkala soo hadlayaa gurigan aan hor taaganahay oo maalin ka hor idinkaga soo baahiyey sheeko aad u murugo badneed islamarkaana xanuun badan ku beertay qulubta dadka Soomaaliyeed. maanta sheekadeedu ma qusaysa murugta la mid ah waa arrin farxadeed islamarkaana muddo 50 sano kadib Abu Mukhtaar oo hore sheekadiisa idin la wadaagay waxa soo raadsaday dadkiisa islamarkaana doonaya inay hadda la wareegaan mas'uuliyadiisa. muuqaalka intuu socday aad kaga boon doontaan sheekada aan maanta idin sida ee farxadeed. halkan waa guriga lagu hayay Abu Mukhtaar Daahir Geedi. waxaa ka dhacday maanta farxad sababtay qosol iyo oohin taasi oo ka timid qalbiga. waxaa faraxsan ehelka Abu Mukhtaar oo helay Mukhtaar Daahir Geedi oo ay dhimasho ku tirinayeen islamarkaana ameelna ku sheegin muddo 50 sano ah. waxaa soo ooyay islamarkaana ilmada cishan waayay Muna Cabdi Diiriye oo ahayd gabadhii ku dhawaad muddo sanad ah dar alla u haysay Abu Mukhtaar, balse duruufo soo wajahay awgeed ay danta u saamixi weeday inay sii haysay islamarkaana maanta ku wareejinaysa Abu Mukhtaar ehelkiisa. Dr. Ali Ifiye iyo Dr. Taabid oo adeer u yahay Abu Mukhtaar iyaga iyo nabadoonkooda waxay ii sheegeen in muddo 50 sano ka hor ay ugu dambeysay Abu Mukhtaar islamarkaana ay dhimasho ku tirinayeen waxayna la wareegeen iyaga oo faraxsan mas'uuliyadda Abu Mukhtaar. marxim runtii maanta waxay noo tahay farxad maadaama aan maanta adeer soo booqanay. runtii waa muuqaal kale oo aad u cajiib ah oo ka duwan muuqaalkii baxay. waxaan u mahadcelinayaa Muna Cabdi oo akhbaartan soo gaarsiisay adeerna gacanta ku haysay in muddo ah. waxaan kaloo u mahadcelinayaa cid walaal cid ku taakulaysay intay Muna gacanta ku haysay. runtii maanta oo ugaaska ila socdo Dr. Taabidna ila socdo waxaan joognaa gurigii lagu hayay adeer. waxaan ballan qaadayaa ka aniga Cali Ifi ahaan noloshiisa caafimaadkiisa inuu aniga ila joogi doono oo gurigeyga joogi doono hadduu Ilaah yiraahdo. tolka waxaan ugu mahadcelinayaa intayna soo wacday intii dareenkan aad u taabtay dhammaan oo mahadcelinayaa. saacadan laga bilaabo waa nin reerkiisa joogo reerkiisa la nool anagana la noolaan doono. waxaan u mahadcelinayaa muuqaalka TV-ga muuqaalka baahiyay Somali Cable iyo dhalinyaradii isku xilqaantay dhammaan waxaan u mahadcelin doonaa. runtii waa maanta waa aad baan u faraxsanahay maadaama adeer oo nolol iyo geeri aan lagu ogeyn maanta la joogno asagoo nool oo xiskiisa qabo oo abtirkiisana maanta saxay. runtii waa wax aad loogu mahadceliyay. Muna Cabdi Diiriye ay guriga ku haysay wadaadkan oo qaraabanahay asagana muddo badan aan raadinayno naga maqnay haddana Ilaahay uu waafajinay aragna saasaan maanta u nimid. waxaan rabnaa inaan xilkiisa la wareegno wax bil aadan hodan wax loogu rabo malin annaga insha Allah noloshiisa ka faala qaadayno. annagana tulkiisa wiilsh ila socdan waa adeer u yahay annana badoonkiisa nahay dadkii hore wahay gabadh hore wahaysi oo inta dhibaato soo martay insha Allah waa mahadcelin waan u duceynaynaa. markii uu xis helay oo maaragtay xiskiisa soo noqdayna familkii abtir ahaan ku soo baahisay aadaan horta ugu mahadcelinaynaa. marka maanta farxad ay noo tahay waa maalintii aan labaad hadda aan nimiday oo muuqaalkii hore muuqaal ka bedelan aan sii deynayno. marka alxamdulillah adeer waa la wareegnay insha Allah maaragtay nolol farxad leh ku noolaan doona. marka walaalaha Soomaaliyeed muxsiniintii soo saaciideysay oo dhan waxaan leenahay jazaakallahu khayral jazaa waa mahadsantihiin Allah idin barakeeyo. hadda wixii ka dambeeyay anaga gacanta ku hayno wallahi anaga yani muddo hore noogu dambeysay familkii kore ee Wajia iyo Mandera North Eastern oo dhan waxa ugu dambeysay 50 sano anigana wiilgay ma arkinbo. Muna Cabdi Diiriye oo ahayd gabadhii doorka wanaagsan ka qaadatay xanaaneynta Abu Mukhtaar balse ay duruufta darteed u codsatay inaan dadkiisa la raadinaa ayaa ilmeysay farxad darteed markii ay aragtay in Abu Mukhtaar ehelkiisa soo raadiyeen isla markaana lagala wareegayo mas'uuliyadiisa. maanta aad iyo aad u faraxsanahay maadaama garbeyga ay tahay nabadoonkii Dr. Ali abtigay kale alxamdulillah waa fiican oo faraxsanahay inkastoo aabaheygi oo iga tagaa murug aan dareemayo cilaan dareemayo laakiin tulkiisa duu helo ku faraxsanahay. waxaan dhihi lahaa aabo mar walbana waa kaa warhaynaa mar walbana waa kuu imaanaa laakiin aad waxaa ugu mahadcelinayaa TV-ga Somali Cable iyo Iidla Aadan Maxamed iyo Samafale oo isgarab haynay oo iska warhaynay
iidlana aada ugu mahad celinay leen wiil gabar iyo wiil oo walaalo aabood haystaayeynay haddana aada u ilmeynaa aabo khayr iskuugniye haddana aada u faraxsanahay muhiimada aabahayga tagaa waxaan rajeynaynaa insha allah mustaqbalka iyo nolol farxad leh. waxaana kusoo gabagabeynayaa muuqaalka in Abu Mukhtaar oo faraxsan iyo ehelkiiba ay maanta muna kala wareegeen islamarkaana iyagoo xanaaneyn doonaan inta ka hartay noloshiisa sida ay ballan qaadeen. Ismaaciil Adan Bariisa, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.